إسرائيل ayaa halkaasi waxay ka sii wadaa duqeymaha iyo beegsiga ka dhanka ah Falastiiniyiinta ku sugan Gaza sida ay sheegayaan ila caafimaad oo ku sugan isbitaalada Gaza duqeymo dhowr ah ayay Israa'iil ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan marinka Gaza tan iyo waa barigii maanta waxaana korortay waxyeelada soo gaartay shacabka Gaza iyada oo la xaqiijiyay dhimashada ilaa 19 qof iyo dhaawaca tiro kale oo intaasi ka badan dhanka Israa'iil haddii aynu weecanno taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Yael Zamir ayaa si gaar ah ugu sheegay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Israa'iil in uu taageersan yahay heshiis lagu sii deynayo dadka la haysto ee maxaabiista ah kuwaasi oo ku jira gacanta Xamaas sida uu qoray wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxay Mareykanka warka laga helayo kulamo baabadu u xiran yihiin ayaa tilmaamaya in Zamir uu ka digay in howlgallada military ee sii socda ay khatar gelinayaan nolosha dadka la haysto ee Israa'iiliyiinta taasi oo sare u qaadaysa walwalka laga qabo khasaaraha bini'aadantinimo ee dadkaasi ay la kulmi karaan sidoo kale Zamir waxa uu shaki geliyay faa'iidada istiraatiijiyadeed ee ku jirta si wadida dagaalka ka dhanka ah Xamaas isagoo sheegay in aan la hubin in kooxdaasi lagu wiiqi karo si buuxda dagaalada ay wadaan ama ay ka wadaan howlgallada ee ka wadaan Gaza si kastaba mowqifka Zamir waxa uu qayb ka yahay khilaafka sii xoogeysanaya ee ka dhex jira madaxda Israa'iil iyada oo wada hadallada xabad joojinta iyo isdhaafsiga la haystayaashuna ay ka socdaan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar watahay isla wararka Israa'iil aynu ku sii soconay ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa gaaray magaalada Washington iyada oo lagu wado inuu kulan la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil kanaalka 14aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in Netanyahu iyo Trump ay ku kulmi doonaan kulan casho oo lagu qaban doono aqalka cad xilliga 6:00 ee fiidnimo waqtiga maxalliga ah ee Mareykanka kaasi oo ku beegan 7:00 saqda dhexe ee caawa ee saacada geeska Afrika Netanyahu oo saxaafadda la hadlay ka hor inta uusan ay raacin diyaaradda ayaa yiri kulanka aan la yeelan doono Trump waxa uu gacan ka geysan karaa ee gaarsiinta heshiiska waxaan doonaynaa inaan gaarno heshiis ku saleysan shuruudihii aan horey ugu heshiinay wafdiga wada xaajoodka Israa'iilna waxay haystaan tilmaamo cad war kale oo arrimahan la xiriira iyo socdaalka Netanyahu hadii aynu jaleecno diyaaradii qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa la sheegay in sii martay hawada dalal dhowr ah oo Yurub ah oo kuwaasi oo qayb ka ah saxiixa ee axdigii maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee loo yaqaano ICC diyaaradda Netanyahu ayaa sida hadalkan kaga muuqataba ay daawadayaal waxa ay martay hawada ee dalalka Greega Talyaaniga iyo waliba Faransiiska taasi oo lagu tilmaamay xadgudub ee dalalkan ay ku sameeyeen xeerarkii ay saxiixeen ee maxkamadda ICC maadaama ay ogolaadeen shakhsi maxkamaddu ay baadigoobayso inuu hawada dalalkaasi maro ee dhib la'aan dalka Faransiiska waxa durbaba ka bilaabatay dacwad ka dhan ah dawladda oo lagu eedeeyay inay jibisay sharciga caalamiga ah ee maxkamadda sababtoo ah waxaana lagu sheegay sababta ka dambaysa dacwadaasi in lagu soo ogo dawladda inay tahay in Faransiiska oo kamid ah saxiixayaasha maxkamadda ICC inuusan xirin Netanyahu maadaama diyaaradii siday ay martay hawada dalka Faransiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa horey u sheegtay inaysan ku qasbanayn inay u hoggaansanto axdigii Roma gaar ahaan marka ay qusayso madaxda dawladaha waa hagaag daawadayaal haatanna waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka oo xubinta falanqaynta taasi oo aan alaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo waliba sirdoonka waxaan kale oo ka marnayn xubintan oo ku soo dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadan doonaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa ka socda wada hadallo la isku jilba jabsaday oo ku aadan hindisaha Mareykanku uu soo jeediyay ee xabad joojinta dagaalka Gaza Xamaas waxay ku adkeysanaysaa iyadoo 3 qodob ay ku dhagan tahay isla markaana ay sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin halka Israa'iilna ay leedahay 2 ikhtiyaar oo ku saabsan arrimaha Gaza iyo xabad joojinta Gaza dhanka Washington iyana waxa iyaguna arrintan si weyn uga wada hadli doona Trump iyo Netanyahu oo caawa kulan ku yeelan doona aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka hadaba warbixin ku aadan arrimahan waxa khubaradu ay ka tiri waxa soo jeedinaya oo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh indhaha oo dhami waxa ay u jeedaan caasimadda Qatar ee Dooxa kadib markii ay yimaadeen wafdiyada Israa'iil iyo ururka Xamaas si ay uga qayb qaataan wada xaajood dheer oo lagu raadinayo xabad joojin cusub iyo isweydaarsi maxaabiis
tallaabahan ka fogeyn wada hadallada Dooxa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ICC doonayso ayaa u duulay Washington si uu ula kulmo madaxweynaha Donald Trump markii saddexaad 6 bilood gudahooda. wadaxaajoodada Dooxa waxa ay diiradda saarayaan qodobada lagu muransan yahay gaar ahaan baxadda ciidanka Israa'iil ee laga saarayo marinka Gaza, habraaca gargaarka bini'aadantinimo u gali doona marinka Gaza iyo sida loo qaybinayo iyo damaanad qaadka lagu soo afjari karo dagaalka. falanqayaashu waxa ay saadaalinayaan in xalka macquulkan uguna macquulsan uu yahay heshiis qayb ah oo soconaya 60 maalmood si lamida heshiiskii Janaayo 2025 iyadoo cabsi laga qabo in Israa'iil dib ay uga laabato dagaalka kadib markii ay jebisay heshiiskii hore ee dhacay 18 bishii Maarso. dalabka Xamaas ee damaanad qaadka sida lagu sheegay qiimeyn siyaasadeed oo uu sameeyay cilmi baare arrimaha siyaasadda Saeed Siyaad oo ka qayb qaatay falanqayn uu sameeyay telefishinka Al Jazeera. Xamaas waxa ay wada hadallada ay ku adkaysatay in la helo damaanad 3 qodob ah oo aysan ka tanaasuli karinin: joojinta dilka iyo barakacinta, ka hortagga gaajada, iyo in ciidamadu dib ugu laabtaan aagga xadka ee la isku afgartay. wada hadallada Dooxa waxay xoogga ay saari doonaan ka bixitaanka ciidamada Israa'iil iyo gargaar bini'aadantinimo, halka kulanka Trump iyo Netanyahu xoogga saari doonaan in dagaalka la soo afjaro gabi ahaanba. in ka badan 22 bilood oo dagaalku socday, Israa'iil waxay og tahay in Xamaas ay weli ay joogto Gaza. sidaas daraadeed waxay raadinaysaa siyaabo aan ku qasbin inay joojiso dagaalka, iyadoo adeegsanaysa howlgallo military iyo amni oo marinka Gaza ka dhigaya meel aan heshiis laga gaari karinin. dhinaca kale, Tel Aviv iyo Washington waxa ay doonayaan in Gaza laga dhigo meel ka caagan hubka, balse aysan noqon meel ay xukumaan Falastiiniyiintu. Israa'iil waxa ay rabtaa in ay gacanta ay ku hayso marinada Philadelphia ama Salaaxudiin iyo Maarooj oo koonfurta Gaza ah. marka la eego xaaladda, Gaza waxay u socotaa marxalad go'doomin adag oo lagu bedelanayo dib u dhis, taasi oo ikhtiyaar ah dila ah la mid ah sii wadista dagaalka, burburinta marinka Gaza iyo barakicinta dadkiisa, sida uu sheegay Sayed, taasi oo Falastiiniyiintu ku qasbaysa in ay adkaystaan oo ay dagaalamaan, iyada oo loo baahan yahay in la helo mowqif siyaasadeed oo Carabeed oo difaacaya. laba ikhtiyaar oo aan mid saddexaad lahayn. xukuumadda Netanyahu oo wajahaysa cadaadis gudaha ah si loo joojiyo dagaalka loona soo daayo maxaabiista waxa ay ka walaacsan tahay in laga hadlo heshiis kama dambaysa kadib dagaalka, halkii laga hadli lahaa heshiis ku meel gaara, sida uu sheegay qabiir arrimaha Israa'iil ka hadla oo la yiraahdo Muhannad Mustafa. Thomas Warwick oo ah sargaal horey uga tirsanaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku raacay taasi, isaga oo sheegay in kulanka Trump iyo Netanyahu diiradda lagu saarayo sidii loo xukumi doono ee Gaza mustaqbalka, halkii uu noqon lahaa mid la xiriira wada hadallada Dooxa iyo faahfaahintooda. sida laga fahmi karo fikirkan, Israa'iil waxa ay ka qayb geli kartaa wada hadallo, balse ma doonayso inay ka tanaasusho awoodda ay hayso, sida in aysan si buuxda uga bixin Gaza, in aysan ballan qaadin in ay dagaalka ay joojin doonto kadib heshiiska 60 maalmood, iyo in aysan kala dirin nidaamka gargaarka Mareykanka ee Israa'iil. si kastaba ha ahaatee, adayga Israa'iil ma quseeyo arrinta maxaabiista, sababtoo ah Netanyahu waxa uu doonayaa in uu soo daayo qaar ka mid ah maxaabiista si uu u wiiqo awoodda Xamaas ee arrintan, taasi oo xoojin karta awoodda wadaxaajoodka Israa'iil. sidaas darteed, Israa'iil waxay u muuqataa inay leedahay laba ikhtiyaar: in ay qabsato Gaza oo dhan kuna dadaasho barakicinta shacabka, amaba in Netanyahu doorto ikhtiyaar kale oo ah in dagaalka la joojiyo oo lagu laabto aagga xadka, iyada oo laga soo horjeedo dib u dhiska Gaza iyo in Xamaas loo ogolaado in ay dib ay u dhisto awoodeeda ciidan iyo maamul. Mareykanka damaanad qaad ma jiro. inta u dhaxaysa dalabka Xamaas iyo xulashada Israa'iil, madaxweynaha Mareykanka uma muuqda mid doonaya in uu siiyo damaanad Falastiiniyiinta, sababtoo ah Washington waxay u aragtaa in Xamaas ay doonayso in wada hadallada ay dheereyso iyada oo ka tanaasulin xukunka Gaza amaba hubkeeda, sida uu sheegay Warwick. marka intaas laga yimaado, Mareykanku waxa uu janjeeraa qorshe ku salaysan maamul ku meel gaar ah oo Gaza laga dhiso, kaasi oo ay ku jiraan hay'ado caalami ah oo maamula waxgaradka Falastiiniyiinta oo aan siyaasiyiin ahayn iyo ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah. hubka dhigista Gaza sidoo kale waa shardi ah in dib loo dhiso marinka iyo in la hubiyo in ciidamadaasi caalamiga ah aan la weerarin. dhammaan arrimahaasi shabakada wararka ee Wala ee Israa'iil laga leeyahay waxa ay soo xigatay saraakiil Mareykan ah oo sheegay in Trump uu rabo in Netanyahu uu la gaaro heshiis ku saabsan shuruudaha lagu soo afjari karo dagaalka Gaza, iyadoo arrinta dagaalka kadib ay noqon doonto qodobka ugu weyn ee kulanka soo socda. saraakiishu waxa sidoo kale ay sheegeen in arrintu ay adag tahay ayna xukumi doonto Gaza kadib dagaalka,
iyadoo Israa'iil iyo Mareykanku ay ka digayaan in aan la gelin xaalad lamid ah midda Xisbullah ee Lubnaan. Maxamed Cabdiraxmaan Haajibiyaan. ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. Macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. Isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahitiraha baahi loo qabay. Safari Remit xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug caddaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano kuna takhasusay xanuunada wadnaha, caloosha iyo dheefshiidka, kilyaha, sambabada iyo lafa xanuunka. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. sidoo kale xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo takhasusyo kala duwan leh. waxaa intaa dheer inaad xarunta ka heli karto adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid yihiin daaweynta jirdhiska, physiotherapy, daaweynta cudurrada maskaxda iyo dareenka sida walwalka, murugada, waswaaska iyo trauma. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. adreeska xaruntu waa 108 Goldie House Road, London W12 8HD.